waxaa la doonayaa in marka loo naxariisto oo laga warhayo oo qofku liyunfiqu sa'ati min sa'ati ba ilaahay leeyahay maxabadii iyo jacaylkii aad ku guursatay xageeba ku dambeeyay ninku markuu gabadha la hadlayo ay maama ay wada sheekaysanayaan mar walba wuxuu soo qoraa waan ku jecelahay noloshii sidaa ku binaysnayd iyo maxabadii iyo kalgacaylkii xageeba ku dhamaaday markay laba dhashay ama saddex dhashay ama ay mid dhashayna telefoonkiiba adiga qaban waayay markay ku soo garaacdo halkaad markii hore markii baa telefoonka qaban jirtay oo oran jirtay aad oran jirtay mar alla markii ay dhowr ku dhashayna adiga faraha ka qaaday yiri waan mashquulsanahay maxaad mar walba iga soo garaacdaa shir baan ku jiraa oo soodigii markii hore si fiican telefoonka uga qaban jiray oo soodigii nolol wanaagsan iyo arrimo badan uga warrami jiray oo soodigii si aanad adigu ahayn uga sheekayn jiray halkee bay noloshaas ku dambaysay ilaa in ilaahay u naxariistay mooyaane waxaa la doonayaa arrintaasi waa arrin aad iyo aad u muhiima weeye rabbi wuxuu leeyahy wacaashiruuhunna bilmacruuf si wanaagsan ula noolaada baa ilaahay leeyahy si wanaagsan ula noolaada baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala haddii kale waxaa laga yaabaa labada qofi yacni nolosha ugu cidhiidhisan inay ku wada noolaadaan haddaad doonayso in arrimahaasu ay ku hagaagaanna waxa weeye run reerku waa inu ku dhaqmaa maxabba waa inay jirtaa kala dambayn waa inay jirtaa isjacayl waa inuu jiraa labada waalid waxay ay isula yimaadaan carruurta ayay ku noqonaysaa carruurta ayaa arkaysa labadii waalid carruurta ayaa arkaysa waxay carruurtu labada waalid ka aragtay bay iyaguna ku dhaqmayaan sidaa daraaddeed waxaa la doonayaa inaynu arrintaa ilaalinno oo meeshii ay maxabba taallo oo kala dambayn taallaa la doonayaa